madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay safiirada cusub ee dalalka Masar iyo Indonesia. danjirayaasha dalalka Masar iyo Indonesia ayaa madaxweyne Farmaajo uga mahadceliyay ka gudoomida waraaqaha aqoonsiga iyagoona sheegay in dawladda Soomaaliya ay si wanaagsan ula shaqeyn doonaan. wasiiru dawlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Khayr ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo safiirada cusub oo kala hadlay sidii iskaashi iyo xiriir wanaagsan uu u dhaxmari lahaa. bismillah maanta waxaan ku soo dhaweynay magaalada Xamar oo lagu qaabilay laba danjire oo u dhiibay waraaqaha aqoonsiga madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. danjiraha koowaad wuxuu ahaa danjiraha dalka walaalaha nahay Masar ka socday oo waraaqii aqoonsiga u dhiibay loo soo magacaabay inuu matalo Soomaaliya ku matalo. danjiraha madaxweynaha markay shireen waxay ka wada hadleen taariikhda qotada dheer iyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeyay labada wadan sidii Masar iyo Soomaaliya ay isu kaashan jireen xiriirka diblomaasiyadda oo muddo dheer soo bilaabmay iyo xiriirka shacabka iyo xagga waxbarashada dhaqanka iyo kulli nagala dhexin jiray wadanka Masar. safiirkan wuxuu soo gudbiyay salaan uga waday madaxweynaha dawladda Masar. madaxweynahana sidoo kale wuu u faray in salaan uu ka gaarsiiyo iyo inuu fariinta ah laga ambaqaado in xiriirka labada wadan uu ka sii wanaagsanaan doono meesha hadda uu taagan yahay. sidoo kale madaxweynaha wuxuu maanta xafiiskiisa ku qaabilay isagana waraaqaha aqoonsi u dhiibay safiirka dawladda Indonesia u matali doona Soomaaliya. aad ayay uga wada hadleen madaxweynaha iyo safiirka xiriirka labada wadan gaar ahaan xiriirka ganacsi ka dhexeeya labada wadan. dad badan oo Soomaaliyeed waxaa jira aad uga ganacsada wadanka Indonesia iyo taariikhda markii la asaasay xiriirka diblomaasiyadda iyo in Soomaaliya hadda ay ku leedahay safaarad magaalada Jakarta oo xoojinaysa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya iyo sidoo kale sidii la sameyn kaashan lahaa arrimaha badaha waxbarashada iyo tababarada. sidoo kale safiirka wuxuu soo gaarsiiyay madaxweynaha salaan uu ka waday madaxweynaha wadanka Indonesia. madaxweynaha wadanka Soomaaliya wuxuu u faray sidoo inuu ka gaarsiiyo dhigiisa wadanka Indonesia salaan qaali ah oo diiran iyo maaragtay in wadanka labada xiriir uu aad u sii hagaagi doono insha Allah. Cabdiraxmaan Aylawe, Somali Cable, Muqdisho.